قاتكو وحوفا إذا يا فائبة كوبادة وشركة بني آدم كأولى يهي وحكروا قادة دفاع شركة وحو إلاليا شركة بني آدم كعذر وكإلاليا ما دام ديق عاد دفاع وقرء قادة هيو ميد اللباد وحو آدي آد هوس وقردقا كوليسترول كحن ديق كدعا وحو قرء قادة وهجاتيا كوليسترول كنافعة وشركة أباهن يهي wuxuu la dagaalamaa oo faa'iidada saddexaad uu ka hortagaa cudurrada wadnaha ku dhaca ayuu la dagaalamaa oo uu ka hortagaa daweeyaana xitaa markii ay joogaan oo uu qofka wadnaha uu ka xanuunsanayo midda afraad ama midda shanaad wuxuu hagaajiyaa dhiig mareenka xididada dhiigga qaada ee circulationka dhiigga qaabilsan ayuu maaragtay aad u hagaajiyay bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh وأنا سلام أصحابته كسر هذا معان ستايل channel ما لديت أصحابتي ذا فيديو جودن بين سوق اللي دراتو أها سيد فضود اللي سيداوي باوسيركا أصحاب بدنا كومنتك بحسي أو يعني إن إيسو قرتي نوع معنا ساعتركا محوية هاي وما هاي أدو بدناين ومشقو سنرى لي هذا كومنتيك ما أركن هالقف أو جوابي ملهن ما أنت مركا أنيجو مركز كوري ما هذا قلب نمدي أو حاركي كومنتي أدو بدن أصحابتي إليه يعني محاواي ساعتركم حوي هاي مركا كل أصحابتي ذي وقالي جاه أنيجو ساعترك الجنال كينا ومعان ستايل وكبوحة كلي إن وحوم لنا يا أون أصحابتي كذا نقصو بيرتي إني فهمي لأيهين إن لما أنتين channelكنا وكود حرنتين أحبابتي ذا لكن والكل هوريسو معها أصحابتي هوري ويقوا أركين ويعني مركو هورا نقنا لسعودي إن وصو أركتين سو معها أنو ساعترك مرنا شاه كديغايو يعني لهاي علوشو في عينها على الفديقة إسحارة أذيكا غاسكا شرحات وافي أنو كبيحي وكجرى جنالك على فيري تبو نقضة وشاهن كديغايا إن عجينكو كلا أنو كدراي واركتين أو استعمالها خاصة عجينك بيزاهو كالي إن روتيدا مع الميه رمضان كادو استعمالها وتادين داهي غاسكو كلا هدو قف غاسكو وكوجيغو كالي يعني قميرها القدرة وحيسو ماهن هذا قفك كمسو قدوما يوم الإبصنايو كلوا أرتم حياب بدن أنو كهلايو فيديو كجران مركي إن سسترادي هذا حربا أم فيديو هالقف جوابها تعملها انقلبت مركا فيديناهي وحاجة على استهل فيديو إن كسو دوبو أنو شرحايو وحيابو في عينها يسدو يهي شيخان عد أنو كسو دوبي وإذن ديسينايا هب كلالو استعمالا يعني ساعتر المأكول أسوكو codkiisa waa dhageysan doontiin insha Allah qofkii rabana saacado maakulkaas dukaanku yaala waa ka doonanaysiin hadii yacni aniga magaaladiina aad joogto hadii kalena meesha joogto on karaadi waa helaysaa insha Allah waa acshaab asaga gacantiisa uu ku sameeyay uu habeeyay saacado maakul insha Allah codkiisa uu noo soo socdaa waa dhageysan doontiin soo dhawaada asxaabteedii u qaaliga hadii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan ha ilaawin inaad taabato meesha yar guduudan ku qoran tahay subscribe haddii aad ka heshay like lasii sheegay oo lasii wadaag dadkaagii ehelkaaga si ay iyagana waxun uga faa'iidaan daawasho wacan asxaabta bismillaah asxaabteeda waxaan rabaa inaan soo hada cashaabtii kan waxaa waay nacnaac saan u yaalaa nacnaac waxaan jeclahay in la wada yaqaano oo uu macruuf yahay af English waxaa lagu dhahaa mint soo maaha سيدو ليه على قسمية كريمية على قسمية شامبوية على قسمية أدي أدو عرف بديها إن شاهي سأدي أد منافعات مركولة أما وايدين سوى الفيديو كديار إن شاء الله وايدين سوى قرينايا كنا وحاواي سيج على في إنجليز مرامية وحاولنا لو فيديو إنا كسو قليه channel كيا مدوحو أها لفتة تمرت مركا حبينينه فيديوغي oo aan dhahay tima lafta timirta aan qalajinayna qoraxda dhigaynay adii dhor video isku kabeedo hal video aan ka dhigay xijiwahay bixisaya idin dhahay markii bowdar laga dhigo waa qasay waa idin tusay nafaqo timaha ma ka dhigna mise cream ma xasuusto walaa xusiyaha wax kale oo ka dhignay timaha cirrado kale inay madoobayso oo habeena sidii isku darnay marka asal soo qalajiyoha maramiyaha waxa isticmaalay waa geedkan hada kulli waxaan wax qalalan ma lahan way qoyin waa fresh
adiga qalajisan karto guriga ku habaysan kartaa insha Allah anoo habeenaa qalajinayno video idinka soo sumeynaya haddii Alla raxmaan kiraahdo marka saas ula socda maramiya hadaa maqashay waa sage af English qofka rabo waa sage kale Soomaali maramiya baa u maqlay afka Carabiyana waa maramiya hadii aan maqashay waa kaas uu yaala reexan ma ahan noocaas uu yaala sage na waa la dhahaa amba maramiya kana waxa waaye rosemary aan tusi jiray maraq digaaga ka sameeyno oo guriga lagu habeenayo cuntoyinka lagu darsadaa khaasatan hilbaha kale aad u carfiya asaga markii la isku daro sactarka aad u carfiyaan hilibka وكي مكان كان أكون قيني وما لقيتنا سوق لنا روزميري تام قشواكنا أما روزميرين لبض أسبوع لها في إنجليش كله والروزميري سومالي ما أقنا حلو ده لكن عربينا وحواي إكليل وجبل إن أكاسا سوق يلا دقي ساعتر كأهان واكنا سانو يلا مركز ما أنتوا كل واحد تساوي فريش ويقويين أي والله قلجين ويجران كان ugu dambeeyay gacanta ku hayo waa sactar oo laamalaamihiisi wixiisa dhan ku xiisan kan waa ka isticmaalayna Soomaa daawada baabsiirka marka ay soo galay diraato ada guriga ku qalajisan karo just qoraxdan baa dhigaysa ama meel hoos ah hadii ay qoraxdan nacayso bariyan qoraxda waa la nacay wixii lagu qalajinaayay marwaxad ay meel hoos ah lagu qalajistaa sactarka markaas saas u yaala cod aan sheekha ka soo duubaa jiro waa idin dhageysiinaya insha Allah kana raa markii aan soo asagana kan waxa waaye ahbaabteyda in waa la qasanahay kabsar caleen miya ay dheen gabdhaha badanaa kabsar caleen ma ahan waxa waaye baqdooniski aan say waaye baqdoonis laba nooc marka uu yahay waa laba nooc u baxaa labada nooc hada waa laba xirmo oo isku xir way aragteen Soomahan nooc wakaas saas u yaala caleentiisa kore saas ku iskuusan tahay nooc kalena wakaasa nooca waa marka noocan ay isticmaalayeen maalinka dhootaanada infection ka si sahal isaga daaway aan baqdooniskan iyo waxyaabo yar oo ku daru ahaa marka kabsar caleen miyaa dhahdeen badankiin kabsar caleen ma ahayn waxa u maleynayaa hadii aan khaldaneen inuu yahay karoodka markuu baxay maarta caleentiisa kore inuu yahay jeclahay cuntadana waa lagu darsadaa sida kabsar caleenta loo isticmaalaa ka caafimaad badan waliba ma sha Allah marka wakaas hadii aan maqashay in baqdoonis ama parsley saas u yaala kabsar caleenta inta saa marka waatan kabsar caleenta caadiga ah waxa ka cagaaran baqdooniska soo qabanaya midan saasay u taala oo widoonta ayada waa yara caleen gooni ah mid ay isku eegayeen raba in ay tuso kabsar caleenta waxay ku kala duwan yihiin waxa ka cagaar badan baqdooniska aad oo cagaar marka isku qabatid ama isku fiirisid Soomaa kala rahan wayna ka yara caleemo waaweyntu ku xoog badan tahay baqdooniska xoog badan hatta dhumucda maarta laanta wax ka burburan kisto in baqdooniska qof kala garanay ma la kala garan karo id shabahan aad iyo aad laakiin la kala garan karaa marka si fiiriso Soomaa saas waaye baqdooniska hadii aan maqashay ama parsley oo kaas saas u la soco maxay tahay ay dhaadeen macnaa waxa u maleynaa inay tahay karoodka markuu baxay maarta geedka karoodka caleentiisa kore iyadoo kaligeeda la isticmaalayo fiidiyoyin ka soo diyaarinaya insha Allah waxaan dhan soo galay channelkay waxaan sactarka ka ahayn marka waxaan jeclaystay inaan sactarka hadda ku dhex daro geedkan waa kana waa rosemary waxyaabo badan ka sameeyay Soomahan rosemary hadaan qashwa kana carfiska hilibka iyo chickenka iyo adiga doorada iyo lagu darsado malaayga aad uu caraf badan yahay asaga iyo waxa la isku darayaa in sactarkan iyo waxyaabo yar yar oo kale carafta waxyaabo hilibka markii lagu carfinaayo rosemary waa kana si fiican ah idin tuso in sage geedka aan dhigeen ama maramiya waxyaabo badan oo fiican yahay ahbaabteeda kaligiisa ka soo diyaarin insha Allah
haddii anaga magaaladan joogno kale aad joogtidna alaabaan iyago organic oo lagu soo qalajiyay oo waxba ku jirina waxaa ka helaysaan dukaanka aan idiin soo sheegi jiray oo yacni sheekh hadda codka aa kasoo duubay dukaankiisa waaye jweeriyo lambarkana waa haysiin haddii kalena qaybta commentiga hadda idinku qoraayo qofkii aan ogeyn hala socdo acashaab fara badan aa ka helaysiin dukaanka waxyaalo dhan ma soo koobi kari aad u badan yahay marka sage ama maraamiya saas u yaalaa reexaan ma ahan waa la qalajistaa alaabtan gurigaagana ku qalajisan kartaa haddii aad heli karto iyagoo fresh oo baxaayo caleentii ah saas u yaala soo maaha af English waa sage af carabina waa maraamiya nacnac waa macruuf saa jeclahay axbaabteeda meel walba ka baxaa guryaha taa uu ka baxaa mint na waa la dhahaa nacnacna waa la dhahaa saas u yaala asagana geed aad u caraf badan guriga meeshuu ku yaal guriga dhan u qabsanaya ku dhahay caraftiisa shaahiisa aad iyo aad u fiican waa idin soo gelin doonaa insha Allah marka hadda mawduuceena haddaan soo guda galno waa kana sactarka shaahan ka sameeyay axbaabteeda channelkayga ku jira fiiriya yani caloosha fadhiisada loo jilcinayo iyo inuu gaaska u fiican yahay uu dadka nadiifinayo bakteeriyada caloosha ku dhalato u fiican yahay soo fiiriyo videogaas insha Allah asxaabtii yani aan ogeyn oo gadaal nagaga soo biirtay waxaan ku dhimasha dad badan ka faa'iideystay saasad inta dhaqdo nadiifiso si fiican isaga dhaqdo ma aragtay haddii aragto inaad qalajisato mareeras u saaraysa meel baa iska dhigaysaa qoraxda bariyahan waa laga dayriyay wax lagu qalajinaa qoraxda dhigin haddii aragto waa dhigan kartaa ama meel adi dabeelo musaa u dhig ama marwaxo akaasa ani soo intuu ii qalalaa meesha ku shubtay si fiican ma aragtiin waa toona mooyaa lagu tumo walibana ankay laantiisa hataa lama tuurin laantiisa hataa waa la jijibiyey blenderka la geliyey caleenta kore ma aragta caleemo yaryar ku dhigan sooma laanta caleemahaas ayadaaba iska jabayso iska daadanayso kadib laanta naftarkeeda waa toonay lama tuurin saas u yaalaa si fiican soo ma aragtaan bizaha cajiinkiisa markii aan xashayso ku dar wax yar عجين روتيو كل والجود الصداع أدي أدو في عيها عبتان كل والجود شيء مركل الشيء أنا ما عرفت أنت أسوق هذا يعني الوجود درا بلندر كوالو شيء ده كلا أرك ونعرفين يا وأنا وعارفين ما تكلوا في عواي أسوق هب كلا لو هبينا جرتو oo adig geeda lagu daraaya waxa la dhahan zactarul maakul sisin ku jirto iyo acshab kale oo sheekha uu khaas oo siro wax u habeeyay way ma sha Allah aad u fiican yahay marka codkiisa dhageysta insha Allah hadii aan isku wadan joognana ka doonta waxa waaye aad u fiican yahay waxaan hadana idin dhageysinayaa codka sheekha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد waxaan doonayaa caawa hadduu alla karaale noqdo inaan soo gudbiyo fawaa'ida uu leeyahay زعتر البري فوائد زعتر البري المأكول فوائد زعتر البري المأكول وزعتر بريga ahaa oo muxuu ahaa gaar ahaan midkii cawdwiga ahaa oo loo diyaariyay si loo cuni karo waxa la isku shiiday asaga iyo 5 midho oo kale 6 buu marka ka kooban yahay ay ku jirto ay 7 ku tahay waxa loo yaqaano milxil bahri ay ku jirto markii sida loo diyaariyo zactar al-makulna loo bixiyay oo magacaas iyaga qaato ko wuxuu faa'iideeyaa faa'iidada koobaad ee jirka bini aadamka u leeyahay wuxuu kor u qaadaa difaaca jirka wuxuu ilaaliyaa jirka bini aadamka cudurrada wuu ka ilaaliyaa maadaama dhiigga cad ee difaacu uu kor u qaadayo mid labaad wuxuu aad iyo aad hoos ugu dhigaa kolestaroolka xun ee dhiigga ku dhaca wuxuu kor u qaadaa oo hagaajiyaa kolestaroolka naafica ah ee uu jirku u baahan yahay wuxuu la dagaalamaa oo faa'iidada saddexaad uu ka hortagaa cudurrada wadnaha ku dhaca ayuu la dagaalamaa oo uu ka hortagaa daweeyaana xitaa markii ay joogaan oo uu qofku wadnaha uu ka xanuunsanayo
midda afraad ama midda shanaad wuxuu hagaajiyaa dhiig mareenka xididada dhiigga qaada ee circulationka dhiigga qaabilsan ayuu maaragtay aad u hagaajiyaa si uu tadafuqa ama dhiigga wareegiisa iyo shubankiisa uu xoog u shubmaayo u ordahayo uu xoogaysto ayuu kor ugu qaadaa wuxuu la dagaalamaa xanuunada wuxuu xanuun baabi'iye u yahay cudurrada maaragtay adigu xanuunada oo dhan buu u yahay xanuun baabi'iye wuxuu hagaajiyaa zactarka maakuulka ah kaadi mareenka ayuu hagaajiyaa wuuna nadiifiyaa si weliba aad iyo aad u heersaraysa ayuu u nadiifiyaa wuxuu la dagaalamaa inuu quruuraxa kelyaha gala uu dhasho ama kaadi mareenka dhibaateeya wuxuu nadiifiyaa oo ama uu saaraa muxuu ahaa waxaa la yidhaahdo isqabsiga ay isqabsanayaan maaragtay waxyaalaha dhaga oo kelyaha hadhow isu bedeli kara quruuraxa ayuu maaragtay nadiifiyaa faa'iidada kale oo uu leeyahay waxaa ka mid a wuxuu nadiifiyaa isaguna waxa loo yaqaano caloosha dheefshiidka ayuu aad iyo aad maaragtay u hagaajiyaa gaar ahaan markaas waa markuu qofku uu ku cuno saliidda zaytuunka kolkaad saliidda zaytuunka intaad kusii darsato aad ku cunto dheef mareenkuu hagaajinayaa wuxuu la dagaalamayaa ama fiijinayaa waxa loo yaqaano gaazaadka wuxuu la dagaalamayaa takhamurka ku imaada maaragtay cunada qofka dheefshiidka dhexdiisa ku imaada wuxuu hagaajinayaa jirkaagu inuu kala baxo waxa loo yaqaano maadatul ayd ee mas-uulka ka ah caloosha markay raashinku shiido jirku wuxuu u baahnaa inay kala baxdo ayuu ayadana maaragtay kor u qaadahayaa waxaa kale oo ayadana fawaa'idiisa ka mida wuxuu kor u qaadaa awoodda daakirada iyo xusuusta ayuu kor u qaadaa gaar ahaan ardayda akhriska ku jira hadday aroortii ku qureecdaan aad iyo aad buu maaragtay u hagaajinayaa daakirada ayuu u xoojiyaa vitamiino aad u fara badan ayaa ku jira oon la soo koobi karin waxaa kaloo u fiican yahay zactarka maakuulka loo bixiyey waxyaalaha jirka haleeya oo dhan ayuu ka hortagaa waxaa loo yaqaana ashuquuq alxara helicopterta wareegta oo meeshay ku degto hadhow ay ka dhalan karto waxa loo yaqaano kansarka ama sarataanka loo yaqaano ayuu maaragtay la dagaalamaa inay meel inay qabsato wuxuu hagaajiyaa jihaaz tanafuska ayuu maaragtay hagaajiyaa iyo aduu shucabul hawaa'iya kulligeed jihaaz tanafuska oo dhan isagana wuu nadiifiyaa wuxuu la dagaalamaa ilkaha tasawuska ku imaada wuxuu hagaajiyaa maqaarka wuxuu la dagaalamaa oo waxyaalaha dawada u yahay uu ka mid yahay waxa loo yaqaano cudurrada maqaarka ku dhaca sida sadafiyada ama agzimaadka runtii waa lama soo koobi karo fawaa'idiisa waxaan filayaa inay gaaraysa ilaa 50 faa'iido insha allahu tacaala waxaan doonayaa inay ka faa'iidaystaan dadku oo maaragtay dadkan ay maaragtay ay ka faa'iidaystaan dadka aadka ugu sii faa'iido badan yahayna waxaa ka mid a dadka da'da yar ee cunnadu ka xidhan tahay ama shahiyadda cunnada ay u leeyihiin ama teedkoodu ay hoos jiraan ee qaangaadhka soo qaangaadhaya ama ilmaha yaryar ee shahiyadda ama muxuu ahaa cunnada ay hoos ka jirto ayuu aad kor ugu qaadahayaa miisaankooda ayuu hagaajinayaa haddii hadda si magac khaasa aniga hadda laydhihi lahaa magac khaasa usii bixi waxaan u bixin lahaa cunnada ilmaha kor u soo qaada ama dadka nugul dawadoodii ayaan dhihi lahaa leanna mustawa aad u qiimo badan ayay qofka geynaysaa miisaankiisay kor u qaadaysaa shahiyadiisay furaysaa lafihiisay dhisaysaa yacni waa dawo aad iyo aad u qiimo badan waxaan dhihi lahaa jarib anta alxakam hadalkayga saasaan kusoo koobaya qof walba adigaba tijaabi canjeerada ku darso bariiska ku darso baastada ku darso muushaalida ku darso zayladida zaytuunka haddaad kusii darsatana iyadana hadda faa'iidadeedii way sii laban laabmaysaa iyo in yaroo malaba aad baa u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran